kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa 5 meel oo ay ku kala badin karaan kooxaha Chelsea iyo Liverpool kulankooda caaw balse inta ku galin waxa ka codsanaya Lexer muuqaalka oo si share kale si uu saaxiibadan u gaaro haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro follow dhaw bogga Sameel Cadaala si aad u hesho warbixinada ciyaaraha kubadda cagta haddii aad igala socdo bartay TikTok ku soo biiro follow dhaw sidoo kale dirista jari wax ka badan inta calaamada ku bilinki si uu dad badan u gaaro si lamid ah soo booqo bartay YouTube ee Sameel Cadaala oo ku maasan tahay la socodkaaga la jaanqaadkaaga markasta mahadsanid kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Liverpool ayaa isaga hor imaan doona caawa garoonka Wembley iyagoo ku dagaalami doona ku guuleysiga tartanka Carabao Cup-ka xilciyaareedkan labada kooxood ayaa kulmay wax ka yar 2 bilood ka hor iyada oo Liverpool ay ku badisay 4 gool iyo gool Liverpool ay ku habsadeen dhaawacyo iyaga oo laga yaabo inay kulankan ka maqnaadaan ugu yaraan 10 xidig oo kooxda kubadda Chelsea ayaa dhinaceeda dib u helaysa kalsooni iyada oo kulan lama filaan ah dhibaca ka reebatay naadiga Manchester City Mohamed Salah iyo Darwin Núñez ayaa labadooduba shaki weyn ugu jira inay diyaar u yihiin kulanka caawa halka Diego Jota la xaqiijiyay inuu seegi doono kulanka kadib markii uu soo gaaray dhaawac foolxun kulankii Brentford ee Liverpool ka adkaatay haddaba warbixintan waxaan kugu soo gudbin doonaa meelaha ay ku kala badin karaan kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Liverpool meesha koowaad waa Paulo Gusto iyo Luis Diaz waxaa jirta fursad xoogan oo garabka reer Colombia ee Luis Diaz u noqon karo bartilmaameedka weerarka Liverpool ee garoonka Wembley Diaz waa inuu ka soo baxaa dhanka bidix ee uu jecel yahay halkaasi oo kaga hor imaan doono xidiga Paulo Gusto laacibka reer Faransa ayaa dhawaan sameeyay shaqo fiican kadib markii uu joojiyay xidiga Manchester City ee Jeremy Doku dareenka weerarka ee Paulo Gusto ayaa sidoo kale u baahan doona inuu raad raaco Diaz kaasoo aan awoodin inuu ilaabo waajibaadkiisa daafaca meesha labaad ay ku kala badin karaan Liverpool iyo Chelsea kulankooda caawa waa Enzo Fernandez iyo Alex McAllister Chelsea ayaa ahayd kooxda labaad wax walba oo ku saabsan qadka dhexe kulankii labada kooxood ee hore waxaana sabab u ahaa qadka dhexe ee labada kooxood xidigaha qadka dhexe ee Chelsea ayaa ku dhibaatooday inay joojiyaan xidiga Alex McAllister kaasi oo maamulay qadka dhexe labada xidig ee reer Argentine Enzo Fernandez iyo Alex McAllister ayaa mar kale ku aamin kara kulanka sawla xiriira cidii ku wanaagsanaa qadka dhexe ee kulankaasi meesha saddexaad ee labadan kooxood ay ku kala badin karaan kulankooda caawa waa Nicholas Jackson iyo Virgil van Dijk Núñez ayaa laga yaabaa inuu nontaam u noqon laakiin kulanka waxaa diyaar u ah xidiga Nicholas Jackson kaasi oo saameyn weyn ku yeelan kara weerarka xidiga reer Senegal ayaa ka hor imaan doona kabtanka Liverpool ee Virgil van Dijk kaasi oo dhinaciisa ku jira qabyaalad cajiib ah Moses Caicedo iyo Wataru Endo dad badan ayaa laga yaabay markii Liverpool isaga hartay baasiga Moses Caicedo isla markaana bedelkiisa u dhaqaaqday xidiga Wataru Endo laakiin Endo ayaa adduunka tusay inuu ka fiican yahay xidiga qadka dhexe ugu qaalisan adduunka ee Moses Caicedo labadaas xidig midkii caawa shaqo fiican ka qabta qadka dhexe ayay kooxdiisu qaadi doontaa tartanka EFL Kaabaha meesha shanaad ee ugu dambeeysa ay labadan kooxood caawa ku kala adkaan karaan waa Cole Palmer iyo Andy Robertson Palmer ayaa la oran karaa waa xidig ugu fiican Chelsea marka la eego saameynta uu ku leeyahay kooxda Chelsea tan ilaa markii uu yimid xidigan taada yar ayaa noqon kara xidiga halista ugu weyn ku noqon kara naadiga Liverpool goolkeeda waxaana uu ka hor imaan doonaa xidiga Andy Robertson ayaa dhawaan ka soo laabtay dhaawac welina ma soo bandhigin qabyaaradkii laga filayay shantaasi meelood ayayna caawa labada kooxood ee Chelsea iyo Liverpool ku kala badin karaan cidii shantaasi meel ku adkaata ayaana caawa qaadi doonta tartanka EFL Kaabaha ama Carabao Cup-ka xeereedkan adiga ahaan haddii aan ku weydiiyo yaa ku soo rajeynaysa labada kooxood Liverpool iyo Chelsea kulankooda caawa xuusa ku dhamaan kara kulankaasi ku soo qorsaadaashaada qaybta hoose ee commentiga maasanid